hadiyado ka bilow ubaxyo ilaa agabyo qaali ah ayaa la isu hibeeyaa ama xataa dhambaalo erayo la muuneeyay ah ayaa la isu gudbiyaa si loo weyneeyo wax loogu yeeray maalinta jacaylka adduunka sanad kasta marka la gaaro 14 bisha February ayaa lagu soo beegaa dabcan Soomaali ayaa maamuusta oo xataa dalka gudihiisa ayaa xaflada lagu sameeyaa laakiin waxaan loogu yeero Valentine's Day ma yahay sida aad moodayso faahfaahinta waan u gali doonaa soo dhawaada waa hagaag marka la soo dhawaada waxaan ahay Abubakar Maxamed mawduuca aan doonayo inaan falanqeyn ku sameeyno oo inta karaankeenna ah aan ka bidhaamino waxa uu ku saabsan yahay Valentine's Day ama maalinta jacaylka adduunka waxa loo yaqaano sababta aan mawduucan u xulanay ayaa ah in la gaaray sanad guuraagii ay bulshada ku dagmaysay maamuuska maalintan laga yaabee in aysan dad badan ka garanaynin wax dhaafsiisan kaliya inay tahay maalinta jacaylka adduunka waa maxay maalintan loo yaqaano Valentine ama maalinta jacaylka adduunka goorma ayay soo bilaabatay yaa jideeyay ama dajiyay maxay u jirtaa ama loo jideeyay afartaas su'aalood ee aan isweydiinay marka aan jawaabahooda isla ogaano kadib waxaan filayaa inaad ka hari doontid ama asxaabtaada uga digi doontid maalintan aan macnaha ku fadhiyin ee Valentine boqorkii Roomaanka oo la oran jiray Claudius ayaa qarnigii 3aad isaga oo yoolkiisu ahaa inuu helo askar badan oo u dagaalanta waxa uu dajiyay xeelad uu ku helo ciidan waxa uu kala fogeeyay wiilasha iyo gabdhaha si aysan ragga ugu mashquulin guurka iyo haasaawaha hablaha maadaama ay boqortooyooyinku ama kalitalisku dadka adoonsan jireen ama adoonsadaan ayuu fasaxay kaliya habeenkii dabaaldega sanad guuraaga aas-aaska boqortooyadiisa in gabar walba warqad uu ku qoran yahay magaceeda sanduuq yar ku rido kadibna sanduuqaas ayaa wiil walba warqad kala bixi jiray sidaas ayuuna ku raadsan jiray gabadha magaceeda ku qoran yahay kadibna inta ay xafladu socoto ayay wada joogi jireen ilaa la gaaro dabaaldega sanadka xiga ee maamuuska maalinta boqortooyada ma aysan kulmi jirin kuna darso kulan sanadeedkaasi waa calaf waayo sidoo kale ayaa sanduuq lagu ridayaa xaanshi lagu qoray magaca gabadha halkaas ayay si nasiib ah wiil ugu beegmaysaa wixii la joogaba waxa soo baxay wadaad Kristaan ah oo lagu magacaabi jiray Valentine ama qisooyinka qaar waxay ka dhigayaan inay ahaayeen laba wadaad isku magac ahaa oo la wada dhihi jiray Valentine si kasta waxa ay bilaabeen in si khudbasireed ah isugu guuriyaan wiilasha iyo gabdhaha muddo kadib labadaasi nin waa la xiray waxaana la soo wariyay in jirdil iyo ciqaab daran oo xabsiga loogu dhex geystay awgeed ay u dhinteen 14 bishii February laakiin sanadaha ayaa kala duwanaa qolihii qarnigaas joogay ee la socday xaalkooda iyo halganka ay wadeen ayaa u bixiyay ama u aqoonsaday inay yihiin naftood horayaal jacayl baadargii la oran jiray Bob Gelasius ee Kristaanka ayaa dabayaaqada qarnigii 4aad milay ay ku beegan tahay sanadkii 496 ee tirsiga miilaadiga waxa uu cayimay u aqoonsiga in maalintan la xuso sanad walba marka la gaaro 14 bisha 2 ee Febraayo ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay ayaa ah in la maamuuso wadaadda Kristaan u dhintay wax ay u arkayeen xaqa difaaca jacaylka ama in lamaanayaasha waqti xorriyad ah isu helaan oo aan la kala xarimin haddaba u dabaaldegidda maalintan maxay diinta islaamka ka qabtaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil ayaa kal hore ka jawaabay Valentine Day gaala waxay yiraahdeen waa maalinta caashiqa dabeetana falaawarka yara casba la isu dhiibay bay yiraahdeen waa maalinta caashiqa de maalin caashiq bi awalgii maqasheen wax sheegay wax u dabaaldegayo muslim ilaahay laga cabsado dhaqan gaaladka la iska daayo yani نبي عليه الصلاة والسلام حادثة يعني إعجازك تلمامي النبي نمديسي وحكمها لا تتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع بنبي سنة دي دتكي دينكو الريبة راعي دونتا تاكا تاكا يردون باو راعي دونتا بنبي كويري مرة سأولي بحديثك قدرنا وحلي هداي قالان حجرة ضب قد مسلو قلي يرير باشرتو قدتك قشاه قد مسلوغلي هداي قالان وكدب قليسان قد كل مسلوغلي دوا وحس دواك دوا مال يرو مدو عريديو قد مسلوغلي ان لا قالام wax macno ku jira xadiidku wuxuu tilmaamaya wax bila macna haday sameeyaan waa ka daba sameyn doontaan marka weeyaan ninkii qad مسلوغلي galay oo waa iyaba la yidho al yahuud wa nasara ba lagu yidhi
oo yaa kale buu nebigu ku yidhi marna waxaa la yidhaha arruusu wala furus faman yaa kale dee iminka waa godkii masalugolay baa ku socotaane war iska daaya yani falantiinkan iyo waxaana sheegaysaan waa godkii masalugolayda uu nebigu yidhi kaa hadday galaan waa ka dabagali doontaan waa la iska daayo maaha waxaasi diine waliba dhallinyaroy dee waxaan eegayay mushkilad baa ina haysataa wargaalku wax fiican buu leeyahay wixii fiicnaaya uu lahaa cid haysa miyaa leedahay gaalku technology buu leeyahay soo aqoon maaha kamaradan imika horta alla laydhadhka kan waxaan daartan waxaa lagu dhisay qaab kalo waa technology waa cilmi maxaa uskagiisuun innagayna daba baray inaynu daba soconno oo wixii cilmigaa u qaadan weyne gaalka waxaa la ogolaya in lagaga daydaa waa waxaan cilmiga ah waxay ahayd inaad tidhaahdo gaal baa dayaxgamceed diraye maalinta dayaxgamceedka la diraan isugu nimaadno saynu dayaxgamceed u diraa saynu wax u barannaa saynu wax u soo saaraa dhallinyaray kaas bay ahayd laakiin gaal baa isqaawiye gaal baa falaawar kor u qaaday annaan kor u qaadiyo gaal baa habeen boodbooday aan boodboodo aakhirana waa lagugu cadaabaya adduunkana wax kuu kordhin mayso wallahu aclam waayahay aad ayuu u mahadsan yahay sheekh mustafa haddii aan su-aal kaaga tago daawade adiga oo soomaali ah oo muslim ah maxay maamuusidda maalintan qiimo ku leedahay waqtigiinna ayaad ku mahadsan tihiine nabadgelyo